السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan halkan ka salaameynaa dhammaan ardayda ku xiran channelka hadaf show. arday walba ama qof waliba oo channelkan ku xiran waxaan idin leenahay maalin wanaagsan, duhur wanaagsan, galab wanaagsan, habeen wanaagsan. qof waliba waqtigay u tahay ayaan ku salaameynaa hadduu waalidmo. maanta waxaan qaadan doonaa waxa weeye cashar aad u muhiimsan ama wada sheekaysi aad u muhiimsan oo dhaxmari doonta laba arday. insha Allah waxay noqon doontaa sida soo socota. It was 4 weeks ago since we meet. It was 4 weeks ago since we meet. afar toddobaad ka hor ayaa laga joogaa markii aan wada kulanay. So sidaas daraadeeda marka, have you any information about oncoming examination? wax war ah ma ka haysaa imtixaanka soo socda ama wax macluumaad ah oo information ah ma ka haysaa imtixaanka soo socda? It was 4 weeks ago since we meet. So have you any information about oncoming examination? yani afar toddobaad ka hor ayaa laga joogaa markii aan wada kulanay. sidaas daraadeeda marka wax war ah ama macluumaad ah ma ka haysaa imtixaanka soo socda? ba wuxuu leeyahay ama qofka xiga wuxuu leeyahay really xaqiiqdii marka I am worrying about the oncoming examination. xaqiiqdii aad ayaan ugu walsanahay imtixaanka because maxaa yeelay have been absent from the schoolka waan ka maqnaa ayuu leeyahay marka for 3 weeks, 3 isbuuc ayaan ka maqnaa. really xaqiiqdii marka I am worrying waxaan ka walsanahay about the oncoming examination. imtixaanka soo socda ayaan aad ugu walsanahay marka because maxaa yeelay ayuu leeyahay marka have been absent waxaan ka maqnaa from schoolka for 3 weeks, marka 3 isbuuc ayaan ka maqnaa. where did you go to? marka halkee aaday ayuu leeyahay marka ma halkee jirtay? wuxuu leeyahay marka qofka xiga wuxuu leeyahay I was busy about the winning parts. waxaan ku mashquulsanaa xafladda meherka of my elder brother, walaalkii iga weynaa. I was busy about the winning parts of my elder brother. waxaan ku mashquulsanaa xafladda meherka walaalkayga iga weynaa who was getting married, kaasoo guursanayay. beeshka xiga where the winning part took place. where the winning part took place, halkee ayuu ka dhacayay xafladda meherka walaalkaaga, yani halkuu ka dhacayay xafladda meherka. wuxuu leeyahay the winning part took place, xafladda meherka waxa uu ka dhacayay at Ramada hotelka Ramada ayuu ka dhacayay. why did not you inform us? sababtaad nagu sheegi weyday maxay tahay marka? wuxuu leeyahay marka I could not remember. waan kari waayay ama waan xasuusan waayay to form you inaan kuu sheego ama kuu wargeliyo. so sidaas daraadeeda marka excuse me iga raali noqo ayuu leeyahay marka. qofka wuxuu leeyahay marka don't be worried, waxba ha ka walwalin. the examination marka imtixaanka will be simple. imtixaanka will be simple, waa uu fududaan doonaa as I think saan u malaynayo, ama imtixaanka uu fudud yahay as I think saan u malaynayo. so marka beejkan ayaan ku celinayaa where the winning part took place. halkee ayuu ka dhacay xafladda meherka? wuxuu leeyahay the winning part took place, xafladda meherka wuxuu ka dhacay ama goobta uu ka dhacay waxa weeye at Ramada hotelka Ramada ayuu ka dhacay. why did not you inform us? sababta aad nagu sheegi weyday maxay tahay ayaa leeyahay marka ardaygaas. wuxuu leeyahay marka I could not remember, waan xasuusan waayay ama waan xasuusan kari waayay to inform you inaan kuu sheego. so sidaas daraadeeda excuse me iga raali noqo ayuu leeyahay marka don't be worried, waxba ha ka walwalin. the examination imtixaanka will be simple, wuxuu noqon doonaa mid fudud as I think saan u malaynayo. marka ardayda waxaan leenahay intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wada shekeysigeynay gaabnaa. arday walba waxaan leenahay hadduu fiidigan kusoo gaaro adigoo maasan u gudbi walaalkaaga ama saaxiibkaaga si uu ugu faa'iidaysto wax un insha Allah. markaad video lacalla uu kusoo gaarana like yaa laga iloobin. like waxa weeye haddaad like saarto dad badan ayuu gaari doonaa si ay uga faa'iidaystaan dadyo fara badan. anigoo ah injineer Cabdinaasir Maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.